saqdii dhexe ee habeennimo kowdii bishii May sanadkii 2011 laba diyaaradood oo nooca helikobtarta ah oo ay saarnaayeen 25 askari oo ka tirsan ciidanka Marines ee dalka Mareykanka ayaa ku soo degay goob ka mid ah dalka Pakistan. diyaaradahan oo noocoodu yahay US Secret Black oo duulimaad hoose ku duulayay ayaa si dhuumasho ah waxay ku soo gaareen halkaasi, waxaana dadkii goobjoogayaasha ah ee xilligaas joogay ay sheegeen in aanay maqlaynin guuxa diyaaradahaas ilaa ay fadhiisteen oo muuqaalkooda arkeen. iyadoo haddaba ay suuragal ahayd in duulimaadkooda uu ku saabsanaa howlgal qarsoodiya ayaa haddana labadii diyaaradood mid ka midihii waxa ay jidhay shabag adag waxaana gashay cillad, waxaana markiiba diyaaraddaa qarxiyey ciidankii watay. hase yeeshee dabadii dambe ee diyaaraddaasi oo ka badbaaday burburkii qaraxa ayaa lagu ogaaday xogo badan oo ku dugan hannaanka ay diyaaradaha noocaasi u dhuumaalaystaan islamarkaana sanqadha guuxooda u yareeyaan. diyaaradda kale ee noocoodu yahay RQ-180 oo ah diyaarad lagu maalgeliyey oo loo huray miisaaniyadda gaashaandhigga ee dalkaasi Mareykanka waa diyaaradda ugu horumarsan diyaaradaha aan duuliyayaashu wadan ee caalamka lagu haysto, waxaana loo samaystay howlgallada dhanka basaasidda, ilaalaynta iyo hubinta xogta taalla cadowga dhabarkiisa. diyaaradda RQ-180 waxay shaqada gashay sanadkii hore ee 2015 waxaana ku rakban qalabka raadaarka, kamaradaha sawirka qaadi kara habeen iyo maalinba, iyo tiknoolajiyadda kale ee dhanka militariga loo isticmaalo, agabkaas oo u suuro gelinaya inay fuliso howlgallada dhanka basaasidda iyo ilaalaynta. diyaaraddan oo baalasheedu ay gaarayaan ilaa 170 fuud waxay awood u leedahay inay duulimaad toosa ku jirto muddo 24 saacadooda iyadoo maraysa masaafo sare oo ilaa 11 mayl u jirta dhulka. diyaaradda kale ee magaceedu yahay Aurora ayaa dhowaan la ogaaday inay shaqo bilowday kadib markii hindisaheedu uu soo jiray muddo 30 sanadooda, waana diyaarad ka mid ah mashruuca horumarinta xuduudda Mareykanka oo ku kacaya $455 milyan oo dollar, waxaana samaynta diyaaradda madow ay daaran tahay hannaan cusub oo lagu yegleelayo diyaarado xawaaraha duulimaadkoodu ka dheereeyo sanqadha codka ama jabaqda. diyaaradda Aurora waxay bixisaa guuxa iska soo daba noqda ee aynu eegkooga u naqaano, codkaas oo uu duubay macadka tiknoolajiyadda ciidamada ee koonfurta gobolka California. duubitaankana waxaa lagu ogaaday in ay diyaaraddi duulayso masaafo 90,000 oo fuud ah oo hawada sare, waxaana diyaaraddaasi ay xambaarsan tahay xogo badan oo dhanka farsamada ah oo ka mid ah qaabka diyaaradaha qarsoodiga ay ciidamadu isticmaalaan.